السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا كحنا جنة كانوا حايدين لنا هاي قلب وناسن ما أنتوا حايدين ونا شيكو عصب يا برنامج عصب شيكو عصب يا برنامج عصب سود هذا سيد هذا نلف في الصدى برنامج كان لك علوسيا ما أنت برنامج بحنا وجهي برنامج علوسيا ما أنت اليوم كو كان وحاوي خطروا كستومي قرن إلا خاطوا كان كستومي قرن شوف كان سوحي روا والله وركن مجل يا كذا ما أوصي كتاب ما جاك هذا سكوا سكنافي أردت بنيميا هرت برنامج كان هرت والله ما أنت برنامج كلول واي محنا قلنا برنامج هذا اسكله صاحب ويل أو هاي ولاد كو أو ولاد النقد الفنان شل إيمانت يوم مانتا والله ما كذا درا مرك مجلس نسوا بس مجلس وحالتها إسماعيل آرك عيالها مركو فنان كنقضي كهر أنتوا فنان كنا كهرنا مجلس إسماعيل مورغان عيال اللي يجري إسماعيل مورغان أو سكوب دلي إسماعيل آرك عيال إذا ونا والله ما مجا من الشيخ لكن لابد ما مجا هداف في شو حقوم ليس كي هره كان لابد إنه يجين لابد مجا أو سمتن أنا مجا شيخ ما يعني لا يد اللي بحوا هذا كان يهرن مورغان محا شيء دامع مورغان معناها يعني ومجا إسكاعي سودان مجا لكن مجا الشيخ أو ما أنت لو حس ملان على حال وشيخ مورغان أو سكوب دلي آركا طبعا وأنتاس مركا برنامج وحفيرين دونا شلي مركو عاشيقة يومانت مركو ياي الفنان آركا هذا سيدة هذا وحن كبلاو دونا مركو الشيقة ها يسبدل كلابات وحن نقول دونا نقضي شيخ كدب شيخة كبلاوينا اوكي سيدة جيفك يا أنعو جاهاك شرفت ليا هرجوك صداو كل جوك عمرنك بجسني جوهرتا دتتا يا كجل بحي الله حقك عدي حما هربايو حبيبك اللي حضرتي إلى تغيو حبيبي سنبيكي لغو حروبايو حسني حسن حرمدودي وحالنا الشيخان ورتا كودو وحو أهانين النبي أمان كديري ما شاء الله عدكي السنة معين كلي الله ولا عضو هاي ما شاء الله iyo shaqada asihay labadooda waa wax fiican laakiin ugu dambeyn shaqadii uu bedelay الفنان آركا لكن نيو aan ku sheegay ani ahaan waxa ila fiican maatada iyo wanaaga inay horeysa qisada amal inay hore ugu dhacday ko ninka ay dhahayaan Abdulqaadir Zulfa Zulfa الفنان زلفا soo muadin ahaa masaajidka aadaamayo sidaan oo kale loo shitaaray in cod qurxana taa Allah best singer laga dhigay صح dib oo iskugu laabtay wada ka laabayay masaajidkiisa u laabtay wuxuu arkay wada qalday inuu ku socdo markii dambe uu laabtay meeshuu ka imaaday oo laabtay meeshiisa ilaa hadda jooga ma sha Allah anigu wanaagsan marka waxaan rajaynaa inuu ka laabto meeshiisa u laabto ninkaan nin la yaraa aragna marka qiibaha kale oo isbedelkii ilaahay dabayliyo dugsikii la doono dayaxiyo cadceedan ku taga dalxiiso kama daalo socodkee halkii daldaloolka muuqda sibadu daryeeniyaho ninkaan dabista cad wallahi horta codkiisu wuu fiican yahay waa fiican yahay walaalo boqolkiiba 90 ninka yaa soo qaldi oo dhahniyo nabi amaanka iyo kuma qurxoonide fanka dhinaca ka gal ninkaan niyaho wuxuu ka hadlayaa maxaa la dhahay qaabka fanka u soo galo asaa ka hadlaayo iyo cid ku dhiirigelisay iyo meesha ka soo galay asaa ka hadlaayo ma fahanti meesha oo ka soo galay asaa ka hadlaayo iyo meesha fanka aaga soo biiray ma fahanti fanka waxa aaga soo biiray wareysiga laga qaadayaa wareysigiisu ku qeexi doonaa wareysigiisu ku qeexa wuxuu leeyahay in shay waxa ka fiican wax asiga afkiisa idinku sheegay afkiisa ka hadli doonaa إن شاء الله نلا صعدة. waxaan kasoo bilaabay degmo heer degmo waxaan kasoo bilaabay ubax yar oo dhalinyaro oo aan halkan aad uga salaamayo saaxiibteedii ahaa berigii aan joogay muqdisho degmadii markaa aan deganaa yaqshi ayaan kasoo bilaabay waxaa fanka markii ugu horeysay ugu dhiirigeliyey oo dareensiiyey inaan heesi karo
ama yiri waad heesi kartaa hore u soco abwaan baashi maxamuud macalin ilaahay u naxariisto uu dhintay oo ka mid ahaa kooxdii heegan ahaana laxmiisti abwaan the musician intaba isku ahaa aad iyo aad waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo halkaasaan ka soo bilaabay kadib waxaan ku biiray oon ka mid ahaa koox la yiraahdo deegaan inaad u salaameeyo ayaan ku biiray oo de halkii heeskii yareedaan qaadi jiray ninkan waa maqshaa wuxuu ahaa iyaal banaadir horta kooxda deegaan taqana kooxda deegaan oo ka tirsan asima ka tirsaneen abwaan ka tirsan maya heegan waa halkaas abwaan ka laakiin asi deegaan ka tirsanaa oo waxa oo dhan kooxda deegaan uu ku biiray laakiin abwaankaas ku dhiirigeliyay inuu fanaan noqdo waa ya garab kugu sii meesha xidigan waxaa dhihi karnaa waa xidig milkiidiisa ay leedahay magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho صح laakiin haddana waxaa wariyaha wuxuu weydiiyay su'aal kale oo ahayd qaabkan ama design-kan aad u jeratid yaa ka dagayay markaas wuxuu ku jawaabay malaha anaa wato barnaamijkan aniga wata qof ugu deeda malahan imaamadii iyo khamiiskii iyo dharkii shalay la qaadan jiray waxaa lagu bedelay suud sidoo kale timihii madaxii oo imaamada ku xirnaan jirtay waxaa lagu bedelay food qurux badan waa isbedel waa xaaladaha nolosha ay ka mid tahay asigoo Muqdisho ku soo laabtay oo si kale ilaab leh loo soo dhaweynayo magaaladiisu ku soo laabtay soo dhaweyntiisa soo dhaweeyay shirab oo kal ilaaba magaalada ay maadaan dhaqanka hidaha Soomaaliyeed shirab oo waxa soo dhaweeyay kal ilaab oo kala kacsan nin wada loo soo dhaweeyay ninkan ugu yahay waa star xidiga ka mid yahay xidigaha Soomaaliya kuwooda ugu caansan maadaama asi fanka waqti dhow ku soo biiray 3 sano ka hor wadaad u ahaa Allah marka 3 sano fanku jira fanku ku cusub yahay ninkan fanku ku cusub yahay haddana nin soo muujiyay waaye dhinaca fanka markaan ka eegno ka hor anaga ninkan ma ka seeyay sax dhamaanteena oo wax aqoon ah uma haysan laakiin fanka kadib Soomaaliya oo dhan markaas ay baratay hadda maxaa leedahay Ismaaciil Aar wallahi ku dhaartay ninkan markaa arkay codkiisa iyo xabiibkeen Muhammad sallallahu alayhi wasallam soo qaaday salligiisa oo xusaayo saacadahan maanta si korkiisa ku jirta ma sha Allah niyow wallahi ma aqaan xilliga shucuurteeda isbedeshay iyo xilliga kale laakiin hadda waxaad leedahay dadkana daawanaya oo ninkan la socdo ninkan waxaa leeyahay horta walaalow waxaa tahay nin oo maanta aqligiisa kala go'ay hanuunkan ilaaha iska leh waxaa ku leeyahay dib u soo laabo nolosha hore laga baahanyahay waxaa tahay nin qol mugdi aftiin ka baxay qol mugdi galay horta dadka Soomaalida haddana ay Soomaaliya inta badan iftiinka waxaa u naqaanaa in nolosha adduunka talaabo loo qaado ninkan mugdiyo oo aftiinoo ka soo baxay mugdiyo galay aad weyn marka aniga waxaa ku leeyahay kulay aniga waa iga aqoon fiican tahay mar nin diin oo soo maraa tahay wax ku sheegi maay kulay halahan dan oo xir hogaaminaya ninkan hogaano hayaa in leader waa hogaamiyo waa marka noloshaas uu ka soo baxay hadda nolol kale ka soo biyo marka waxaa ku leenahay wilbeek kala watan noloshaada soo laabo dadkaada ku baahan wanaaggaada ku baahan asxaabtaada ku baahan codkaada macaan quruxda badan inaan ku raaxaysanaa rabnaa oo ugu raaxaysana amaanta iyo xadiisada iyo qur'aanka kariimka adigoo akhrinayo marka waa ku baahanahay noo soo laaba dhinacaas fiican nolosha bilowgeeda bacde maxaa ku soo laabanay dadkaada ku baahan halkaan ku soo gabagabeynaa aarka booskiisa isla socod wanaagsan mac salaam